laba su'aal muhiim ah in isweydiiyo baahan sababtoo ah khilaafka siyaasadeed ee jira dowladda goboleedka Jubbaland dowladda federaalka ka dhacay xilliga doorashada lagu jiro dadkii oo laga mashquulinayo xaaladka lagu mashquulinayo iyo aniga aragtidaan qabo dowladda Soomaaliya ama filla Soomaaliya iyo shabaabku waxay heshiis ku yihiin hadda xaaladda taagan in khalkhal amni laga abuuro magaalada Kismaayo marka waxaan dhihi karaa oo tuwan jira meeshaas inuu xiriir ka jiro in khalkhal amni la abuuro hatta dharkan markay wateen waa booliska iskool booliisiya lagu qaybiyay sida hadda la cadeeyay ee ugu dambeeyay la qaybiyay ayay wateen 4 askari saddexna labana waa la dilay halna waa kan isqarxiyay halna nolosha ayaa lagu hayaa marka cadeemahan way soo bixi doonaan iyo xogaha laakiin waxaan aaminsanahay in wax la soo maleegay ay yihiin oo istiraatiijiyada laga leeyahay ay tahay in la dhaho Jubbaland amni maaha magaalada Kismaayo doorasho gudaheeda kama dhici karto waxa noocaas oo la soo abaabulay inay ka marneen baa meesha ka muuqata marka waxaad qabtaa dawladdu ayaad leedahay arrintan iyada ayaa lug ku leh weerarkan dhacay xiriir aniga shaki nagama jiro inuu xiriir jiro xogaha aan helayno arrintaas lagu wada shaqeeyo xiriir dawladda iyo shabaab ka dhaxeeyay qaraxan lagu maleegay ayaad qabtaa inay jirto adigoo xildhibaan kamid ah golaha shacabka aniga oo xildhibaan kamid ah golaha shacabka waxaan tuhmayaa oo aan aaminsanahay marka ay wataan iyo qaabka loo abaabulay iyo sida madaxtooyada u fikirayso markaan iskarab dhignay hay'adaha amniga halkaas ka jira sidoo waxaa jira in arrintaasi relationship uu jiro waana ka hadlaan xildhibaano badan maanta si jira inay ka qabteen waayo marka ma isleedahay qudhaada xildhibaana waxay ku noqon doontaa arrin dambi noqon karta oo su'aashida lagu weydiin karo hadalkan haddii aadan caddayn rasmi u hayn waxtuun waxa dambi ugu noqon karto waa dareeska wadamada dareeska ciidamada booliska federaalka ayuu ahaa lagu qaybiyay xogaa badan way soo bixi doonaan relationship meeshaas ka jira waxaana deganaa xildhibaanada meesha deganaan xildhibaano Jubbaland iyo processkeeda taageersan bay ahaayeen meesha hotelka taageerayna hotel 99% dadka Jubbaland iyo processkeeda aaminsan bay ahaayeen xildhibaanada macluud aan ku tiriyay waa xildhibaan xasan yar oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka oo isagoo ku sugan magaalada Kismaayo kana mid ahaa dadkii ka badbaaday weerarkii hotelka cascasay telefoonka iigu warramay xildhibaan aad baad u maasantay